habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararka ugu dambeeyay guud ahaan Soomaaliya qodobada aan caawidiin hayana waxa kamid ah madaxweyne Xasan Sheekh oo ciidamo u gaar ah ka qoranaya Puntland maxay yihiin ciidamadaasi warbixinteena ayaa ku arki doona sidoo kale madaxweyne Farmaajo oo dalab cusub soo saaray muxuu yahay dalabkaasi waan arki doona iyo sidoo kale madaxweynaha dawladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo maanta kulan la yeeshay ganacsatada magaalada Boosaaso maxay kaga wada hadleen kulankaasi isagana waan arki doona balse marka hore wax ka codsanayna YouTube-ka ku soo birto subscribe dhahdo muuqaalka laga saarto kambalelkana furto si ay ku soo gaaraan warbixinada maalinlaha ah ee halkan ku soo gudbino hadii aan ku bilaabo xildhibaan Cabdullaahi Faarax Mire oo kamid ah xildhibaanada Puntland ku matala baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in mas'uuliyiin aad ugu agdhow madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay ciidamo u gaar ah Xasan Sheekh ka aruurinayaan deegaanada Puntland xildhibaanka ayaa sheegay in dadka Puntland ay Xasan Sheekh ka sugayeen inuu kala qayb qaato dagaalka ka socda Calmiskaad balse uu wado taas badalkeed oo ah inuu Puntland dhexdeeda ka sameysanayo ciidamo isaga u gaar ah una fulinaya amarada uu isagu rabo waxa uu sheegay xildhibaanku in ciidamada cusub ee Xasan Sheekh ka qoranaya Puntland oo isagu mushaharka iyo wax walba ay u baahdaanin uu siinayo sidoo kale waxa uu sheegay inay la mid yihiin ciidamada dawladda Soomaaliya oo hal marna mushaharka u soo wada dhici doono sidoo kale xildhibaanka ayaa sheegay in dagaalka argagixisada u baahan yahay in loo midoobo balse dawladdii ayuu sheegay inay iyadu wado isku dirka iyo kala geynta bulshada Soomaaliyeed Xasan Sheekh iyo mas'uuliyiinta kale oo uu sheegay inay ka soo jeedaan Puntland ayuu sheegay inay wadaanin sidii loo fashilin lahaa dagaalka Puntland kula jirto kooxaha argagixisada ah si gaar ah kooxda Daacish oo hadda laga sii ciribtirayo deegaanada Puntland xildhibaan Cabdullaahi Faarax ayaa Xasan Sheekh ugu baaqay inuu ka waantoobo inuu siyaasadeeyo dagaalka khawaarijta lagula jiro sidoo kalena uu joojiyo isku dirka dadka reer Puntland iyo inuu ciidamo aan munaasib ahayn ka dhex qorto deegaanada Puntland hadalka xildhibaanka ayaa imaanaya xilli dhawaan warbaahinta Puntland ay tabisay inay socdaanin abaabul ciidamo cusub kuwaas oo laga qorayo deegaanada Puntland dhanka kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa ka hadlay weerarkii tooska ahaa iyo qaraxyadii ay shalay al-shabaab ka geysteen hotel ku yaala magaalada Beledweyne sidoo kalena waxa uu soo saaray dalab cusub oo la xiriira xaaladda dalka ka taagan ugu horeyntii Farmaajo ayaa u tacsiyay ehelada dadkooda ku geeriyoodeen weerarkii lala beegsaday odayaasha iyo saraakiisha ku sugnaa hotelka ku yaalay magaalada Beledweyne isagoo uu xusay inuu murugta la qaybsanayo qoysasku dhibta soo gaartay Farmaajo ayaa yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan murugta iyo tacsida la qaybsanaya ehelada iyo qaraabada dadkii birmageydada ahaa ee ku geeriyooday weerarkii argagixisada ahaa ee argagixisadu ka geysatay hotelka Qaahira ee magaalada Beledweyne ayuu yiri madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qoraal ku soo qoray bartiisa Facebook sidoo kale waxa uu intaas ku daray muwaadiniinta kale ee dhaawacyadu soo gaareen iyo burburka hantida ee dhacay waxaan alle uga baryayaa bogsiimo degdeg ah iyo badal khayr qaba ayuu intaasi raaciyay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib tacsiyeyntii uu tacsiyay eheladii dadkii ku dhibaatooday qaraxii halkaasi argagixisadu ka geysatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay u midoobaan la dagaalanka argagixisada si looga hortago falalka guracan ayuu yiri ay kooxdu ka wado dalkeena si aynu u helno qarannimo iyo midnimo buuxda ayuu yiri Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qoraal ku soo qoray bartiisa Facebook dhanka kale madaxweynaha dawladda Puntland oo maanta la kulmay ganacsatada magaalada Boosaaso ayaa kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa xoojinta amniga magaalada Boosaaso oo uu sheegay inay muhiim u tahay guud ahaan Puntland madaxweyne Deni ayaa sheegay in dawladda iyo dadka Puntland ay ka mashquuleen ammaanka Puntland taasna ay keentay in kooxda Daacish ay deegaano badan kala wareegto Puntland madaxweyne Deni ayaa sheegay inuu hadafka ugu weyn ee dawladda Puntland uu hadda yahay in buuraha Calmiskaad iyo Calmadow laga sifeeyo guud ahaan kooxaha argagixisada ah ee halkaasi ku dhumaalaysanaya sidoo kale madaxweyne Deni ayaa sheegay in kooxda Daacish maanta loogu dhacay godadkii ay ku dhumaalaysan jireen lagana sifeeyay walina ay ciidamada geesiyada ah ee Puntland ku guda jiraan sidii ay uga sifeyn lahaayeen deegaanada kooban ay ku halkaasi kaga hareen madaxweynaha dawladda Puntland Siciid Deni ayaa sheegay in ganacsatada mar dambe laga yeeli doonin waa la cadaadiyay oo kooxaha Daacish iyo shabaab ayaa lacag iga qaaday waxa uu sheegay in qofkii dambe ee dhaqaale siiya kooxahaasi uu la kulmi doono ganaax iyo xarig sharciga waafaqsan